Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. daawadayaal meel weliba aad joogtaan kusoo dhawaada wararkeena caawa. qodobadaynu kusoo qaadani doono waxaa ka mid ah dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa waxay ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda dhankaas iyo galbeedka gobolka City. sidoo kale waxayna ku baaqday in miiska wadahadalka ay wada yimaadaan labadan qowmiyadood ee halkaasi ku dagaalamaya. waxaynu kale aan soo qaadani doonaa dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay gobolka Xamaarada iyo xaaladaha ay kala marayaan. sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa diiradana ku saari doonaa qaybooyinka qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu halkan idinkugu faahfaahin doonaa. daawadayaal kusoo dhawaada marka hore channelka oo subscribe saar, like oo saar. haddii aynu ku bilowno daawadayaal, dhankaas iyo gobolka City waxaa ka socday dagaalo aad u xoogan oo u dhaxeeyay Canfarta iyo Soomaalida. dagaaladii u dambeeyay dabcani waxaa la sheegayaa in labada dhinacba ay guulo ay sheegteen. sidoo kale horey waxaynu uga soo hadalnay in deegaano qaran ay kala qabsadeen labada dhinac, halka ciidamada liyu booliska halkaasi ka dagaalamayay iyo kuwa kale ee shacabka ay iskaashanayaan ay iyaguna ay ka qayb qaadanayeen dagaalka. ay sheegeen in dhufaysyo aad u xoogan ay ka saareen Canfarta halkaasi ku sugnayd. dabcani ciidamada halkaasi ku sugan waxa ay sheegayaan in ay ku hareereysan yihiin magaalada Garbaciise, sidoo kalena dhaxda ay ku jiraan ciidamada Canfarta ee halkaasi jooga. square ayay ka qabteen oo magaalada Garbaciise qayb kamid ah waxa ku sugan ciidamada Canfarta. sidoo kale dhanka kalena ayaguna waxa isweer ku haya aan iraahdee nin waliba ka haya ciidamada liyu booliska oo ku hareereysan ciidamadaasi. warbixin ka soo baxday dhankaas iyo madaxtooyada Addis Ababa ayaa waxaa lagu sheegay in la joojiyo dagaalkaasi. dadaalo aad u badan ayay ku bixinaysaa dowladda dhexe ee Itoobiya in wada hadallo loo furo labadan qowmiyadood ee muddadii u dambeysay ku dagaalamay halkaasi ee galbeedka gobolka City. sidoo kale waxay ku baaqday in waxa maanta ka dambeeyo la joojiyo dagaalka. maanta oo ugu dambeysay dabcani wax dagaal ah kama dhicin magaalada Garbaciise oo labada ciidanba way is horjoogaan, iyagoo ay horeyna loogu sheegay in amar uu ka soo baxay dowladda dhexe halkaas oo ah in aysan maanta wax dagaal aysan dhicin, halkaasna uu ku ekaado dagaalka. sidoo kale Abiy Ahmed waxa uu sheegay in miiska ay wada imaadaan labadan qowmiyadood heshiiyaan. horey waxaad u ogeedeen in labada dhinac ee ah Canfarta iyo Soomaalida halkaasi heshiis la dhaxdhigay, balse heshiiskaasi uu noqday mid fashilmay. dabcani muddo ayay qaadatay dagaaladana halkaasi ka dhacaya. muddadii u dambeysay ama labadii maalin u dambeysay dagaaladii ka dhacay Garbaciise waxaa ku dhamaaday boqolaal aan iraahdee oo dad rayd iyo askarba isugu jirto. intaas in la mid ah iyaguna waa ay meesha isaga baxeen oo ay ka carareen oo ayna ku barakaceen. dabcan dagaalada halkaasi ka soconaya dadyo fara badan ayaa si kala duwan u fasiray, iyagoo yiraahday dagaalka halkaasi ka socdo waa dagaal siyaasadeedsan oo ay dowladdu u jeedo in ay gobolka aan iraahdee Soomaali galbeed ay ku mashquuliso halkaasi dhanka siyaasadana ay kaga leexiso. dagaalada halkaasi ka soconaya oo u dhaxeeya Canfarta iyo Soomaalida dabcani waxaad ogeedeen in maalimo qaar aysan dhicin dagaalo, halka qaybo kamid ah iyagu ay bilaabayaan dagaalka Canfarta oo waliba ay ku bilaabayaan si gaadma ah. arrimahaasi oo dhan dabcani haatan maanta u dambeysay haddii aan idin sheegno wax dagaal ah kama dhicin gobolka City, gaar ahaan magaalada Garbaciise. sidoo kalena ciidamada halkaasi ku wada sugan ee liyu booliska iyo kuwa Canfarta way is horjoogaan, iyagoo waliba dhageystay amarka dowladda dhexe ee Itoobiya ka soo baxay ee ahaa in miiska la wada yimaado. dabcani arrintaas waxay ka soo kordho halkan ayaynu idin kula wadaagi doonaa saaxiibayaal. qodobkeen labaad haddii aynu soo laabano dhankaas iyo gobolka Axmaarada waxaa ka socda dagaalo aad u xooggan. deegaanka Axmaarada waxaa ku dagaalamaya
xooga TPLF iyo ciidamada huwanta ee halkaasi ku sugan. Labada dhinac dabcan waxay sheeganayaan guulo, sidaadba ogeeyeen afhayeenka TPLF waxa uu sheegay in hanjabaad iyo afcaaro leh uu hawada u mariyay oo welina ka sheegay TV-ga Tigrayga afka Tigrayga ku hadlo arrimo xasaasi ah. isla markiiba waxa uu soo jawaabay madaxweynaha Axmaarada isagoo sheegay in ay ka adkaani doonaan asagii iyo ciidamadiisa ay xulufada u wato afhayeenka Tigrayga. dabcan dagaalada u dambeeyay Tigrayga waxay ku dhawaaqday in deegaano fara badan ay qabsadeen, waxayna sheegeen in wadada isku xirta Itoobiya iyo Djibouti ay iyagu haystaan, balse wax xog sax ah kama soo bixin arrinkaasi. ilo ku dhow oo halkaasi ku sugan aynu wareysanay waxa ayna sheegeen in aysan magaalo aan iraahdee wadada isku xirta Itoobiya iyo Djibouti aysan haysanin iyagu, balse haddii ay dagaaladu ay sii socdaan ay uga shakisan yihiin in ay soo gaari doonaan deegaanada ku agdhow wadadaasi dagaalada. dabcan halkaasina ay ka imaan karto in TPLF haddii ay ku gacan sareyso dagaalada soconaya in ay qabsani karto wadada isku xirta Itoobiya iyo Djibouti. dabcan TPLF waxa ay sheegeen in ay ku gacan sarreeyeen dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Axmaarada ayna qabsadeen deegaano hor leh, balse arrimahaasi oo dhan dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa beenisay oo waxay sheegeen in aysan waxba guula aysan gaarin. sidoo kale ciidamada dowladda ee huwanta ee halkaasi ku sugan iyaguna waxay sheegeen in ay iyagu guulaha ugu waaweyn ay gaareen, sidoo kale dhufaysyo aad u xoogan ay haysteen ay ka saareen, deegaano fara badanna ay ka saareen. dabcan TPLF xooga ka soo baxaya ayna sheeganayaan waxaa lagu matalay in ay yihiin waxba kama jiraan oo mar waliba waxa ay soo tabiyaan dabcan ay waxba kama jiraan ay tahay. deegaanada ay kala qabsadeen dabcan iyagu ma ahan deegaano aad u istiraatiiji ah, balse xoogan soo gaaray waxay sheegayaan in ilaa waradyada ku dhow halkaasi ee magaaladanka lagu dawaamay ee waliga gobolka iyo sidoo kale magaalada Debretaabuur deegaanada weyn hoos imaada ay iyaguna dabcan ay halkaasi ay ku jiraan deegaanada la kala qabsaday. maalmihii u dambeeyay dabcan TPLF dharbaaxooyinka ku dhacayay waxay ahaayeen kuwa jab weyn kusoo aadayay, balse baraha bulshada waxaa haystay muuqaalo ay kasoo duween ciidamo ay iyagu ka qabteen kuwa huwanta ee dowladda ay leeyihiin ee militariga halkaasi jooga. balse militariga afhayeenka militariga amaandhaha dowladda ayaa waxay ku dhawaaqeen inaysan ahayn waxba kama jiraan, ay waxa ay soo bandhigeen ay yihiin ciidamadooda ay u xirayaan dareeska ciidamada Itoobiya ay wataan. Abiy Ahmed dabcan dagaalada halkaasi ka soconayo horey waxaad ogeydeen in heshiis ay dalbadeen xooga TPLF afhayeenkoodana uu ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin in heshiis ay galaan, balse weli dowladda kama aysan dalban. waxay ka dalbadeen beesha caalamka oo ay uga baaqeen in ay mar kale ay heshiis iyadu iyo dowladdu ay dhexdhigto. horey waxaad ogeedeen heshiisyadii la dhexdhigay ee Itoobiya in ay soo bandhigtay aan ka wadaay in ay iyagu ay ku xireen shuruudaad u adag, taasoo ah in Abiy Ahmed uu xukunka isaga tago. dagaaladan Itoobiya aad ay ugu sii faafayaan. dabcan dadka qabiirooyinka waxay sheegayaan in sanadkan uu ku dhamaani doono. dabcan sanadka cusub waxa soo bixi doono ay aan la saadaalini karin. miiska wada hadalka u dhaxeeya TPLF xoogooda iyo sidoo kale ciidamada dowladda andhahe dowladda dhexe dabcan goorta ay wada imaan doonaan lama xaqiijin. dagaalada weli sidooda ay u socdaan, dagaalo aad u xoogan ayayna sidoo kale si xawli ah ay ku socdaan. maalimaha qaar dabcan dagaaladu aad uma sii weyna, balse maanta iyo shaladii lasoo dhaafay dabcan dagaalo aad u culus ayay ahaayeen dagaaladii dhacay. arrimahaasi oo dhan ayagoo faahfaahsan horeyna waan uga soo hadalnay, haddana waxaynu idiin sheegaynaa in dagaalkii halkiisa uu weli taagan yahay.
waa tahay saaxiibayaal intaan warkan war lamid ah kulmi doono waxaan idin leenahay halkaas ayaynu idinkaga tegaynaa janaalka ku xirnaada oo subscribe inoo saara like inoo saara sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa xoogan halkan kusoo gudbino in ay warar xaqiiqooyin ah ay ku saleysan yihiin dabcan dad fara badan ayaa halkan inooga soo jeediyay iyagoo sheegay in mar waliba aan inagu taageero nahay Tigreega dabcan waxaas ma jiraan oo sida ay wax u jiraan ayaan halkan kusoo gudbinaa لأن sababtoo ah man dhihi karno iyagoo TPLF ay dagaalka ku gacan sareyso ma dhihi karno axmarada ayaa dagaalka ku gacan sareyso dabcan waxa aynu xooga na soo gaaray halkan idin kula wanaagna oo xaqiiqa waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.